sida la wada ogyahay ilmaha wuxuu ku hadlaa sanadda labaad ugu badan sanadii bar markuu jiro laakiin waxaan dareemay sanadka saddexaad cunug aan hadlayn oo wax feedback haddaad wax ku tiraahdo kugu soo celinayn wuxuu doonaya aadan garanayn isla markaas ay ka muuqato xaaladda normality-ga uu ka baxsan yahay ayaan dareemay sanadka saddexaad ayaan dareemay inuu cunugani uu xanuunkan uu qabo ayaan dareemay xanuunkan autism-ka waxaa la dareemi karaa cunuga markuu jiro 6 bilood ilaa iyo 2 sano ka hor istaamo ka badan yani xaaladda autism-ka naftirkeeda ay ku sugan tahay saameyn ay ku yeelanaysaa haddii xaalado adag oo ku sugan yahay amba xaalado oo mild ah marka waxaa lagu dareemaa xanuunkan sometimes waalidiinta inta aan la sheekaystay 2 jir ilaa 3 jir marka cunuga hadal ka soo daaho amba cunugii ka yar la dhalo ay arkaan inuu hadlaayo markaas ayay soo baraarugayaan waalidiinta bulshada ka sokow aniga shakhsiyan nolosha aan la noolay cunugayga waxaa dareemi kartaa qof hadda 5 sano jir ama 6 sano jir ah oo aan hadlayn haddii wax yar laga sameeyo maxay tahay noloshu si kale noqonayso ama gidaar madaxa iskugu dhufanayo waa dareemi kartaa intaan bulshada la gaarin anagii isagii cunugii aan dhalay baa isku cadiban macnaha inaan marna ilaaliyo waxyaalaha dhibiga ka ilaaliyo maxay tahay mar aan isku dayo inaan maxay tahay aan controlo macnaha inaan mar walba isaga aan maxay tahay si gooniya u ilaaliyo ayay u khasabtay bulsho ahaan markay tahay bulshada ma ficiya lama ciyaari karo ma ficiya maxay tahay way takooriyaan ku dhad waxay leeyihiin waa kii wax ka siin waa tuurayaan waa gooni bay iskaga saarayaan si ku dhisana halka cuqdad ayuu ka dareemayaa oo maxay tahay xanuunkii ayaa ku sii badanaya sidoo kale waalidiintu waxaan ugu baaqi lahay hadday ku arkaan ilmahooda xaalad ka duwan xaaladaha normalka ah in ay la raadsadaan talo dhaqaatiir talo psychologist ay la raadsadaan ayna dadka caadiga waxay dhahayaan ayna la sii raacraacin مثلا cunug 5 jir uu ku hadlaa amba 6 jir uu ku hadli doonaa amba uu ku socod doonaa haddii wax abnormal oo arka waalidkii in uu la raadsado meeshii oo jawaab fiican ayuu ka heli lahay bulshada aan la noolahay waxa ugu horeeyaan kala kulmo waxay tahay qof aad soo galayso مثلا cunugaadi ku faca oo hadlaayo aad ku imaanayo hooyo wadato maxaa ku dhacay cunugtaada ma hadlayso miyaa maxaa ka qaldan jirro ma jirto adiga marka waxaa imaanaysa inaad isku buuqdid oo aad fakartid dadka qaarkoodna waxay ku leeyihiin ilma 5 sano ku hadlaan ilma 4 sano ku hadlaan marka kelmadda kaliya oo ka ilooba hadda aan rabo inaan soo qof walba ku dhaho cunugaada muddo u baahan yahay uu hadli doona ha ka yeelin waa horta ina adiga go'aansataa ina cunugaada aad fiiriso waxa hadalka ka soo daahiyay muxuu yahay oo ilmaha kale uga hooseeyaa caqabada isoo gaaray heerka waxbarashada inuu wiilkayga iskool iyo aasi karin dugsi qur'aan oo iyo aasi karin fariisanaynin wixii kaloo cayaar ee waan yeersii karaa laakiin oo maanta wixii xun iyo wixii san oon kala saari karin axyaananne oo u maleysid ciyaalka kale inuu ku aqli badan yahay runtii waxaan ka dalbanayaa dawladda u horeysa wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka hay'adaha ku shaqada leh maxay tahay danaya barnaamijkan xanuunkan ilmaha qaba waxaan kula talinayaa waxaan ka codsanayaa in maxay tahay ay naga saacidaan wax allaale wixii ay naga saacidi karaan in naga saacidaan ayaan codsanayaa waxaan ka dalbanayaa bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad hay'adda waxbarashada hay'adda xuquuqul aadamiga diktoorooyinka Soomaaliya joogo inayna taakuleeyaan xaruntaas noola furo ciyaalkeen waxbarasho noo helaan waxaa laga yaabaa ciyaal inay ka soo baxaan ciyaal biriito dalka wax u qabto mush xataa ma dhahayi iskuul kaliya loo furo ilaa heer jaamacadeed xataa jaamacad aan u baahanahay ciyaalkeen in loo furo marka ilmaha autism-ka qabo waxa lagu yaqaan inuu hadalka ka daaho oo uusan hadlin markuu cunuga hadli karinna waxaa dhib imaanaya inuusan qofka la xiriiri karin taasaa marka waxay keenaysaa inay waxyaabo badan oo maxay tahay wixii ay qabsan lahayn ama dadka inay dhex galaan inuu cunuga marka bulshada ka soocmo inuu waalidkiis la hadli karin walaalihiis inuu la ciyaari karin marka wuxuu noqonaa cunug oo kaligiis inuu asaga kaligiis la joogo kaligiis inuu wax sameeysto rabo oo noqonaa marka cudurkaasna waa cudur la yaqaan ilmaha qaarkood waxa laga yaabaa inay ka fiicnaadaan ay maxay ahaato waxbarasho iyo hadii loo sameeyo iyo tababar ilmahaas in la tababaro oo ayagoo aan xataa kula hadli karin inaad tababari kartid
waxyaabaha kale aadka u qabaan waxaa ka mid inay aad u fudud yihiin oo ay shaqooyin badan qaban karaan oo ilmahan kale qaban karin waxaa laga yaabaa kuwa qaarkood inay xataa noqdaan marka ugu dambeyso dad wax badan soo saara xataa oo cilmigooda marka in laga cabsoodana ma aha in la qariyana ma aha waxaa fiican in marka hore loo sheego maxay ahata waalidiintii waalidka oo yaqaaniin noocyada uu yahay kadibna ilmihii la yaqaanay loo soo maxay ahaato isbitaalada iyo inay keenaan qaybta caruurta dhakhaatiirta la soo xiriiraan dhaqamada dadka qaar laga yaabo inay haystaan in la takooro ama bulshada laga faquuqo wax wanaagsan ma aha maxaa yeele qofkan dembi uu galay oo hadda maxaad u gashay loogu takoorayo ama loogu faquuqayo meesha ma yaallo waa cudur ilaahay uu keenay oo ilmahan ku dhacay waalidka iyo ilmaha haddii la weydiin lahaana inuusan ku dhicin ayay dooran lahaayeen laakiin doorasho iyagu ay leeyihiin ma aha waa cudur sidiisa ugu dhacay taas marka waxay bulshada ay uga baahan yihiin in yacni lagu soo dhoweeyo la garab istaago niyada loo dhiso arrintan ayada ah maadaama ay ku sabirsan yihiin oo culays ay ku tahay oo yacni xaalad gaar ah ay la dhaqmaayaan inay bulshadii ka helaan dhiirigelin booqasho say wax idin yihiin xaalkiina xaguu maraaya in la isbooqdo diinteenna waxaad u dhiirigelinaysaa qofka hadduu xanuunsado in loo tago oo lasoo booqdo ajir badan ayaana ku jira marka cudur oo dhan ayaa in la isu booqdo ay tahay cudurradan gaarka ahna way ka sii daran yihiin waa cudur qofkii la soconaya ama yacni xaaladii